barakacayaal Soomaaliyeed oo ku nool duleedka degmada Dooble ayaa waxaa soo food saartay xaalad bini'aadanimo oo qalafsan iyagoo dalbaday gargaar degdeg ah oo bini'aadanimo sidoo faahfaahinta warkan inoogu eegayo wariyaheena Bashiir Gaxnoog iyadoo ay jirto saadaal wanaagsan oo la qabo in la helo dawlad sama bixisa shacab weynaha Soomaaliyeed ayaa haddana waxaa jira in badan oo ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya halkani waa xero la magac baxday Nasiib oo dhacda duleedka magaalada Doobley waxaa ku nool barakacayaal danyar oo ka kala yimid gobolada Bay Bakool iyo sidoo kale gobolka Jubbada Dhexe ujeedka ayaa ahaa inay soo gaaraan xeryaha Dadaab balse barakacayaashan ayayna u suurtagelin inay waqti xaadirkan ku dhiiradaan inay soo galaan xeryaha Dadaab taasoo ay sababtu tahay inay jirto dib u noqosho dad badan ay door bidayaan inay ku laabtaan dalkoodii hooyo barakacayaasha ayaa hadalkooda u dhigay sida tan raashin iyo waxa u baahan dad masaakiin baanahay mas'uul ma haysano ii sheegay guri ma haysano barakac baanahay marka waxa u baahan inta raashin iyo wixii oo noo soo heli karta aan uga caawiso waxaan ka soo barakacay magaalada Saako waxaan u socday meeshii qaxootiga u socday markaan arkay dadka soo laabanaya Doobley waan iska joogay mas'uul ma haysano adeeg nagu fulo ma haysano dhardhaq subihi waadana mar waa la soo heli marna waa la soo waayna magacayda Muslima Maxamed Saawa meeshii ku sugnaa kaam Nasiib dad barakac oo dhawaataysan soo barakacay meeshii ku dhaltaan oo ku dhaqmayna aan ka soo barakacay howlaha ka dhamaadan abaar soo gashana waanahay meeshii ka imaadaan anay u dawmara man rabeen laakiin hadii oo maxaa loo socdaa dhulkii ogaanto dawligu soo cararay untiyo ku guri meesha nolol ku xishim Sooma dabaqowe baahangna biyo naftiyo يا هايسن هو كله ونهايسن مرهاشين وهايسن هذا بورش ولا ففوري ويلها يكره واكم بري بريد كانوا بريس إذا أجرنا نسي أمواي أنتي ده أمباهن بوس وأهم شقة يسداو داركونها مها دكتور داركام مسوما إنقاذي dhanka kalena si aan ku helo xog dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda barakacayaasha ayaan la kulmay isku dubaridaha arrimaha gargaarka u qaabilsan maamul goboleedka Jubbaland Mudane Cabdikariin Budul Maxamed waxaan wax ka weydiinay waxqabadkooda ku aadan xaaladda barakacayaasha wuxuuna ku warbixiyay sida tan wax badan baan u qabanaa wax badan waa kala soconaa inta Ilaahayna karsiyo iyaga laba nooca qaar Soomaalida gudaheeda ka soo qaxa waa jiraan oo dadkan deegaanka ay ku soo qaxaan ay caawiyaan intii balsamafal iyo hay'ad iyo waxa aan la gaarin si Soomaalinimo si Islaamnimo si maxay ahayd kalgacal dadku ay uga qayb qaataan marka ka dambana hay'adahan u bandhignaayo aan gaarsiinaa waxyaalahan la yiraahdo IDPs-ka marka kadibna hay'adaha waxaan baahidooda markaan sheegno haddaba waxaa jirta kaambi la yiraahdo dan wadaag oo guriga looga dhisay horaan 200 bay samaysay DRC hay'adda la yiraahdo haddana ARC baa waxay samaysay 200 oo kale 400 ee guri baa hadda u dhisan rajana waxaan ka qabnaa in loo balaariyo insha Allah taala qoys walbana in qiyaas oo ku filan oo 2 qol musqushi barandadoodii intaas loo sameeyaa dhulkooduna waxooga cabir iska fiican 15 uu yahay marka inahaasaan u qabanaa waxaan kaloon sameynay meelo suuqiyo ah oo aan rabnay iyagana dadka waxeli kara oo dadka nolol maalmeedkooda ka soo saari kara in iyagana suuq u noqoto waxaan sameynay musqulo on mar walba control ku haynaa waxaan sameynay hadda muddo 2 bilood ka hor isku soo wada duub oo barakacayaasha ku nool duleedka magaalada Doobley ayaa ku sugan xaalad bini'aadanimo kuwaas oo wajahaya duruufo adag isla markaana codsanaya gargaar iyo kaalmo bini'aadanimo waa Bashiir Gaxnoog Kalsan TV xeryaha qaxootiga Dadaab gobolka Waqooyi Bari Kenya